بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينه aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. hawsha runtii maanta meeshaan ka muuqata ee madaxtooyada dowladda Galmudug waa runtii hawl aad iyo aad loogu farxo oo qurux badan. dadka deegaankan iyo dowladooduna ay iska kaashadeen oo ay qabteen hawshaan runtii waa idinku bogaadinayaa, waan idinku hambalyeynaya sida quruxda badan iyo dhismayaasha quruxda badan runtii iyo madaxtooyada sidaan u ballaaran ee baaxaddan leh runtii marka la arko wax aad iyo aad loogu farxo waaye. hambalyaan idin leeyahay dadka reer Galmudug meel kastoo ay joogaan astaan dowladeed oo muuqata oo xoog badan oo qurux badan ayaa ka muuqata runtii Dhuusamareeb iyo caasimadda Galmudug. runtii waqtiyo badan aan la soo maray oo hore Galmudug marba heeray joogtay, maanta aad iyo aad ayay uga sarreysaa meelihii ay joogi jirtay. meel u dhow maaha intaan iyo in lamid iyo in dhow ma jiri jirin. astaan calaamay u tahay intaan keliya maaha, horumarku waa ka badan yahay intaan, laakiin tanaa astaan u ah in uu deegaanku soo kabanayo oo soo horumarayo. shalana magaalooyinkii aan tegey runtii magaalooyin aad iyo aad u fiican, dhismayaal fiican leh oo aan qiyaasaya haddii khawaarijtu aanay joogi lahayn inay aad iyo aad intaa uga sii ballaarnaa lahaayeen. dowladda Galmudug madaxweynaheeda iyo golaheeda wasiirada iyo baarlamaankeeda waa hambalyeynayaa, waana ku bogaadinayaa shaqada iyo isku duubnaanta iyo wanaagga ka muuqdo. waxaan rajaynaynaa in halkaas hore looga sii dhaqaaqo aan dib loo noqonin. caqabadaha hor taagan oo intaan ayadoo khawaarijtii joogto oo deegaanadii aan la mari karin oo badeecad kasta wax kastoo la keenayo diyaarada lagu keenaayo oo la waxaynayo, intaan haddii la qabto ilaahay idinkiis beri dalku markuu xoroobo wadooyinka furmaan oo baabuurka baska xamar ka soo baxayo oo Dhuusamareeb imaanayo, waxaan rajaynayaa in xawli aad iyo aad intaan uga fog Galmudug inay ku sii dhaqaaqi doonto. hambalyaan idin leeyahay. madaxtooyadan waxay ka mid tahay madaxtooyooyinka kuwa ugu quruxda badan uguna ballaaran ee maanta maxaan ku yiraahdaa ka jira dowlad goboleedyada. marka muxuu ahay intaasna dadaal ku timaday iskama ayan imaanin. marka hambalyaan idin leenahay, waa idin bogaadinaynaa shaqada halkeeda ka wada insha Allah. meeshaan quruxda badan waa u soo nasiino doonaa haddii aan leeyahay insha Allah. meel runtii lagu nasto oo aad iyo aad u qurux badan oo maxaa deganaanshiyo badan oo ka muuqda waaye. marka hambalyo reer Galmudug dhammaantiin saa u dhantiin waxaad leeyahay hambalyo aad iyo aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.